wararka naga soo gaaraya magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle ayaa sheegaya in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay magaaladaasi ka wadaan dhibaatooyin kala duwan. ciidamada gumaysiga Itoobiya ku sugan magaalada iyo sirdoonkooda ayaa la sheegaya inay dab qabadsiiyeen suuqa weyn ee ku yaala magaalada Goday. sida wararku sheegayaan ciidamada wayaanaha ayaa si gaar ah waxay u bartilmaameedsadeen qaybta lagu gada dharka iyadoo xilligan lagu jiro mid ka mid ah bilaha sida gaarka ah ay dadka islaamka u dukaameystaan. dhanka kale wararka imaanaya magaalada Garigoan ayaa sheegaya in halkaas ay ku dagaalameen qaar ka mid ah maleeshiyaadka dhididowrka oo gumaysiga Itoobiya dabaqoodhiga. 7 bishan 2016 ayay ahayd markay halkaas isku farasaareen laba qaybood oo ka mid ah dabaqoodhiga hawaarinta. waxaana la sheegayaa in halkaas isaga dileen 6 askari 9 kalena ay isaga dhaawaceen. 6 bishan 2016 Wichiwachi waxa iyadana ku dagaalamay koox ka mid ah dabaqoodhiga hawaarinta. waxaana la sheegayaa in halkaas isaga dileen 4 askari 6 kalena ay isaga dhaawaceen. isla taariikhdaasi xadadlayowga oo gunagada ka tirsan waxa iyaduna halkaas ay isaga dileen maleeshiyaadka dabaqoodhiga hawaarintu 3 askari 5 kalena way isaga dhaawaceen. wararka naga soo gaaraya gobolka Axmaarada ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegaya in maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen halkaas dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo jabhadda hubeysan ee ka dagaalanta gobolka Axmaarada. sida wararku sheegayo dagaalka ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Chawi ee gobolka Axmaarada waxaana halkaas lagu farasaaray koox ka tirsan ciidamada wayaanaha oo isku dayay inay wax ka qabtaan kacdoonka ka dhanka xukuumadda TPLF ee ka socda gobolka Axmaarada. xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaalka ayaa tibaaxaya in ciidamada wayaanaha lagaga dilay dagaaladaasi 37 askari halka uu jiro dhaawac culus oo la geeyay magaalada Addis Ababa. kambanigii lahaa beerihi ay dhawaan gubeen kooxaha kacdoonka ka wada dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah u sheegay in albaabada isugu dhufteen ganacsiga ay ka wadeen halkaasi. dibadbaxayaal careysan ayaa toddobaadkii hore xoog ku galay beer shirkadu ku lahayd duleedka Baxardaar iyagoo dab qabadsiiyay qalabkii iyo dalagii beertaasi yaalay. shirkada oo lagu magacaabo Esmeralda Farms ayaa ubaxa Itoobiya laga beero u dhoofin jirtay wadamada dibadda. hase yeeshee kambani Mareykan ah oo saami xoog leh ku lahaa shirkada ayaa go'aansaday in la xidho shirkada oo sheegay inuu soo gaaray khasaare xoogan. warbixinta shirkada soo bandhigtay ayaa lagu tilmaamay in dhulkii wax lagu beeri jiray kanaaladii waraabka qolalkii qaboojiyaashu yaaleen iyo bakaaradii la dhigi jiray ubaxa dhammaan la gubay. shirkada Holland ayaa sheegtay inay khasaare xoog leh oo lagu qiyaasay adduun gaaraya 10 milyan oo dollarka Mareykanka uu soo gaaray sidaas daraadeedna aysan sii wadi karin shaqada. ku dhawaad 800 oo ka mid ah heerada maxaabiistii jeelka qilinto ee dhawaan la gubay ayaa dibadbaxay ku dalbanayaan ogaanshaha xaaladda dadkoodii xabsiga ku jiray ka dhigay magaalada Addis Ababa. dadkan oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa doonayay in loo soo bandhigo magacyada dadkii lagu dilay jeelka si ay u ogaadaan in dadkooda ay ku jiraan iyo in kale. balse ciidamada wayaanaha ee Federal Police ayaa dadkaasi ku qaaday weerar keenay in loo geysto jirdil foolxun sidoo kalena qaar badan oo ka mid ah dadkaasi xabsiyada la dhigay. sida ay ku waramayaan shabakadaha taageera kacdoon wadayaasha ciidamada booliska wayaanaha ayaa dadka u adeegsaday rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa halkaasi oo dhaawacyo kala duwan ay u geysteen dadka la xidhay oo lagu sheegay in ka badan 300 oo ruux ay ciidamadu jirdil baan u geysteen intii uu socday hawlgalkii lagu qabanayay. balse qaar ka mid ah dadka la xidhay ayaa la sii daayay sida ay sheegeen kadib markii ay xidhnaayeen habeen halka qaar kale oo ka mid ah dadkii cabanayay ay ku jiraan xabsiyada booliska ee ku yaala magaalada Addis Ababa. ugu dambeyntii 4 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii iska horimaad culus uu ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Sielow ee dalkaasi Kenya. iska horimaadka oo u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Kenyaanka ayaa waxa uu salka ku hayaa lahaanshaha dhul beereed ku yaala halkaasi. laba kale ayaa weli loogeyn halka ay jaani cirib dhigeen kadib markuu halkaasi ka dhacay iska horimaadka u dhaxeeya labada dhinac. gudoomiyaha degmada Sielow George ayaa waxa uu sheegay in deegaanadaasi loo diray ciidamo aad u fara badan oo booliis ah kuwaas oo ku tilmaamay inay samayn doonaan baaritaano.